ninka madaxweynaha Puntland ma shalay ka dhageysanay BBC warkaas uu waxaan anigu haddaan joogo oo Puntland matalay Soomaaliya war matalaa waa runtii uu fiican yahay oo matalay hadduu matalay uu fiican yahay laakiin muxuu daba dhigay sababtu waxa weeye Puntland ma iibin kartid dad Soomaali iibin ya marka waa in aan dabcan anigu de hadda Soomaali cid ii wakiilto Soomaali matali tiri ma jirto laakiin aniga Cabduwali ahaan mas'uuliyad ba iga saaran haddaan meesha imid oo u imid maalgelin aan u doonayo Puntland haddana waa inaan iibiyaa Soomaaliya sababtoo ah Puntland kuma taalo jasiirad ka baxsan Soomaaliya ka mid tahay Soomaaliya la xaal tahay Soomaaliya la situation tahay marka waa inaan iibinaa dabiicadda iyo khayraadka Soomaaliya oo dhan su'aashii kale la weydiiyay maxaa ahayd waxa la yiri gobolka mudug qaybo kamid ah iyo galguduud baa la isku darayaa iyo galmudug maxaad ka qabtiin markii wuxuu la soo booday la rabaa maamulka sameyntiisu inuu shida anaga nagu keenin taas way taan diidanayn oo hadhow anagu aan leenahay degmooyin anagu aan leenahay in la yiraahdo marka waxay raacayaan gobol kale ama lagu doodo ama sida hadda muuqata dadka qaarkood ku doodayaan waxay la tahay waxa weeye wax meesha ku jira ma aha inaysan sharciyan in la yiraahdo gobolka mudug oo dhan ayaa ka qayb galaya maamulka gobolada dhexe laakiin aanu taariikhdan idin sheegaya sideedii gobol ee wadanku ahaan jiray gobol Majeerteen ayaa la oran jiray Garowe iyo Boosaaso iyo halkaas ay ka dadbanayd gobolna mudug baa la oran jiray gaalkacyo xarun u ahayd Dhuusamareeb halkay ku jiri jirtay ya mudug intaan galguduud gobol dhan la sameeyeen Dhuusamareeb iyo gaalkacyo meel gaalkacyo xukumi jiray mudug iyo Hiiraan maxba u dhaxeeyay sida aan naqaanay berigan carruurta inay wax dhiganaynay gobolka Hiiraan la yiraahdo Beledweyne iyo gobolka mudug xukumaysay ma gobolada u dhaxeeyay haddaba hadduu ninkaas fikir oo mutacallim yahay wuxuu oran lahaa awal gaalkacyo intaas oo dhan iyada xukumi jirtay buu oran lahaa laakiin qabyaaladii baa hayso wuxuu leeyahay gaalkacyana dhexda lagu kala gooyo magaalada dhexda lagu kala gooyo gobolka anagu aan degnan xaqana loo mariyo inta kalena xaqaa loo kaxeeyo Soomaaliya waa wada sidaa uun ilaa wax wadaniya kan